xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf kana mid ah xildhibaanadii hore golaha deegaanka degmada Berbera mar labaadna ku soo baxay natiijada hordhac ee komishanka doorashooyin ay habeenkii xalay ay ku dhawaaqeen golaha deegaanka degmada Berbera ayaa hambalyo u diray taageerayaashiisa iyo taageerayaasha xisbiga muxaafidka kulmiye oo ka sharaxna xildhibaankaasu. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa mahad leh, waxaan halkan uga mahadnaqayaa marka koobaad ilaahay, marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshada ku nool degmada Berbera ama gobolka saaxil kuwii codeeyay iyo kuwii aanay codeyninba aad baa u mahadsantihiin. waxaan ku darayaa mahadda kadib hawl adag baynu soo galay. ilaahay dee wuxuu inoo suuro geliyey inaynu mas-uuliyad ummadeed oo aynu hore u qaadnay inaynu maantana mar labaad qaadno. mas-uuliyadda waxaa loo baahan yahay inaynu ilaahay kaga baqanno, bulshada ku nool ee degmada Berberana aynu u adeegno inta ilaahay dee xilka labaad ee layna saaray. dhinaca kale xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan inuu noqdo maayirka degmada Berbera muddada 5 sano soo socota. waxaanu sheegay inuu hore ugu ololan jiray inuu noqonayo maayirka degmada Berbera isla markaana weli uu ku jiro hankiisii uu ku doonayo maayirnimo. isagoo amuurta ka hadlayna wuxuu yidhi waxa kale oo doonayaa inaan ku daro anigu cabdirashiid ahaan runtii dee muddadii aan kaambeyn gareynayay waxaan sheegi jiray in aan u tartamayo 2 xil oo kala ahaa xubinnimada golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo meeyarka magaalada Berbera. waxaan u sheegayaa taageerayaashayda iyo dhammaan bulshada ku nool degmada Berbera inaan hankaa waxba iska bedelin. waxa ay barbar socon jirtay kulley dacayad loo oran jiray cabdirashiid goluhun buu doonayaa inuu ku soo noqdo maayirnimo doonaya nin kale u dhisayaa. waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo anigu cidaan dhisayaa inaanay jirin. anigu aan hawsha u sharaxanahay ilaa haddana waxaan aaminsanahay inaan ahay ninka ugu habboon haddii ay tahay aqoon iyo haddii ay tahay waayo aragnimo, maadaama aan muddo 8 sannadood iyo badh aan ku soo jiray maamulka degmada raggii hogaaminaya aan ka mid ahaa ay bulshadu hore u soo dooratay. waxaan bulshada mar labaad uga mahadnaqayaa oo si gaara ugu mahadnaqayaa dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba. waxaan si gaara uga mahadnaqayaa inay runtii dee mar labaad ila halgameen ii hiiliyeen iskay barbar taageen. aniguna waxaan halkan idinka ballan qaadayaa sidii aan horeba idinku ballan qaaday intii aan ku jiray ololaha doorashada inaan hadiya habeenba idiin shaqayn doono, idiin hiilin doono, ka shaqayn doono masaaliixdiina, arrimihiina bulshada, horumarkiina, shaqo abuurkiina inaan ka shaqayn doono ayaan sidii aan horeba idinku ballan qaaday iminkana idiin ballan qaaday.